بسم الله الرحمن الرحيم. هدي aad maqasheen beer sisina ama aad arki jirteen maanta waxaan dhex joognaa beer sisina oo ku taalo bariire ayaan ku dhex jirnaa. ninkaas waa ninkii ahaa meesha beerta karaale ama manager saa u taqaanaan. waa tub badan madiin si fiican uma bixin. weligina waa la socotaan oo Ethiopian baa goostay. marka beerta wataasa aan ku dhex soconno. marka sisintu waxay ku dhashaa imaanu sisinta meeqa ku dhashaa meeqa bilood ku dhashaa 83 maalmood oo macnaheedu tahay 2 bilood iyo 3 marka waxaa la yiraahdaa ambul ama tub ayaa la yiraahdaa. marka hore sisintu haddii aan tusaale ahaan idinka siino waxay u baxaysaa iyadoo yar yara kabacdi marka ay yar tahay noocaan oo kale hadda dhulka ku jeedaan iyadoo baxaysana waa tusaana. marka daawasho wanaagsan ayay oran jireen ragga youtube-yada ku shaqeeya ama follow us masora. marka abdullo weli waxaan dhex maraa gaari u qabo weli waxaan dhex maraynaa sisintii tubkeedii waa kaasa. marka waa iyadii oo aan beerta dhex marayno markay baxayso waxa 83 bil iyo waxa waaye 23 casho ay ku bislaan. hadda baatan wili lama siibin waa la siibaa laakiin way diyaarsan tahay. qaybtaas waa la siibay hadda waa la abuule tan maanta la siibay. marka la siibay sidaan kale loo siibay saano kale loo siibay saasa loo dhigay. dhulka wax yar oo leh adiga oo hal maalin camal caleenta ka daadanaysaa. meeqa sano ayaad beeraha adigu ka shaqaynaysa? meeqa sano ayaad beeraha ka shaqaynaysa? 2 sano kaliya maasha allah. marka kuwaan maxaa la yidhahdaa marka saa loo tubo? tub baa la yidhahdaa. loo soo qaadaya laba qof isla qabanaysa shiraaca loo dhigaya ama roog ama wixii loo yaqaan saana loogu gadinaya lagu jafaya. marka waa gartay marka lagu jafo miraha ka baxaya ka daadanaya. marka hadda 4 xabbo qolofka wala soo tuura qolofka ama xoolaha cunaya. marka hadda intaan oo kale meeqa kombo galey ka soo bixi karta sisinta? intaan oo kale waxa ka soo baxaysa 5-6 kombo kala cunaysa. 6 kombo. marka 6 kombo meeqa kiilo saliid noqon karta? meeqa kombo saliid noqon karta? waa gartay. dabcan beertan nin qurba jooga ayaa iskale oo wadankii ka soo tegay isyiri bal wadankaaga hooyo aad wax ka qabsatid. marka waan salaamaynaa dhammaan annaga oo joogna bariire ama meesha la yiraahdo beeraha number 50. waad u jeedaan halkaas waxaa ka baxay xambihii qarihii ayaa hoos yaalla. marka nimcada dhulkiina ka soo waxaysta geedkan yarka ah waa caday. kolley Soomaalidu hadda burush bay ku cadaytaa dibadaha meelaha joogta waa caday soo geedkaas. marka waa mahadsantihiin. bismillahi raxmaani raxiim. maanta waxaan joognaa beertii qaraha ahayd oo 2 usbuuc ka hor aan duubnay. ninkanna waa ninkii beerta joogay oo ka shaqaynayay ama managerka u taqaanaan. marka maxay tahay farqiga u dhaxeeya iimaanow 2 wiig ka hor beertan qareeda aad buu u yareeraa haddana sida muuqato qaro waaweyn oo maasha allah dhalay ayaa noo muuqda. marka bal isbedelka nooga sheegee. waxa waaye qarahan hadda waa
bislaaday hadda xilligii oo bisaylka oo gurtaan ku maraya beertii oo isbuuc kor aan duulayna oo ninka qurba jooga oo lahaa marka isbedelka u dhexeeya waad u jeedaa adigu hadda waa arkaysaa in uu hadda uu marayo qarahan oo hadda uu joogo iyo isbuucii hore duulayna intuu la ekaayo hadda intuu marayo waa u jeeda saasay tahay weli hadda korniina usii dhiman qaarkiis waa bislaaday hadda isbuuca in la guro oo hadda xilligii oo suuq geyntu marayo qarahan xilligii ramadaan ku soo aaday marka maxaad kula talinaysaa dadka qurbaha joogo oo laga yaabo beer gaal leeyahay keliya inay arkaan mooye aan arag beer Soomaali leedahay oo dhulkii ka aaminsan in uu dagaalo iyo xarbul ahli ka dhacay marka dadka noocaas maxaad maartay u soo jeedin leh waatana beertii qaraha haye Cabdullaahi haye beertan ka waran qaraheeda ما شاء الله شغل في عنايات كقبتين وبير قراءة سألوا جيدان ممكن إيمان وهذه وشقي مركا هدي أن هرب سجل بيرنا أسبوع هرب واحد كوارتين يدو قرية ير قرية ير إكوا بلون مثلا وحول جيدان ما شاء الله عبد الله وجيدان كله جهل قراءة qurbaha kulley maraykanka xabadaas oo kale waxaan ku arkay waa $6 ayuu ka joogaa xabadan qaraha weyn $6 ka joogaa organicna ma aha organic ma aha intana free lagu siinaya intana free hadda timaadaan beertan dhaqanka beeraleyda ay leedahay waxa weeye waad iska waxaana tagad waayaan dadkan weligeed arkin yaanyo baxaysa ama yaryar ama qara baxaaya oo saan oo kale u yaala maxaad kula talin lahayd maxaad u sheegi lahayd waxaan kula talin lahaa qarahan anoo intaan ka yar baan beeri jiray hadda mataano dhalay maasha Allah waa qara waa laba xabba halkan ku yaala ka soo taga qurbaha wadankiina hooyo imaan u soo dalxiis taga aad u macaan baa u dhaxaysa ayaan taro waa idin sheegay ما شاء الله بلدك ورثت إيمان وبرد هذا بشيء إيمانو سودو فافاين ديراد نقصي بيرت هذا أحمرية بيرتان مراي هكتر واحد beertan 3 hektar iyo waxa waaye 4 jibaal 4 boos هكتر يو يقانا إلا هالكاس وي وحا هالكا كم وقت ولي واسل بيرتي أو قراءة qori ma haysano wax kale ma haysano shacab aan nahay meeshaan habeenkii seexanaa waqtigii ilaahay noogu talagalay beerteena gaariga noo imaanaya ku gurana ummad badan oo Soomaaliyeed iimaan oo daan kuleer kaftama tahriib Suudaan bay bartaa Liibiya ka sii baxda Sahara ay tagtaa finally waxay helaan shaqo aan maartay xataa lacagta ku soo dhoofay aan dhammayn in guri loo gaday ama xoolo badan ee maamada ku qasaayay dadka ayaga hawiyasha qolka nasiinada oo jooga waayo beertaas marka waxaan filayaa waa kana qarihiisaas u dhex jooga qarihan maanta xunay halkaasaan qari ku qashay mar dhaweyto waxaas waa beer sina u qabo halka toobkan ku qabo tub ayaa la yiraahdaa meeshan waa meesha
qolyaha luuqadaha yaqaana waxay dhahaan camping markii dalxiisayaasha loo soo tago meesha la galo ama daashka la galo kale ayaa camping la yidhahdaa marka campingkaas ayaa ku jira ujeedaa markaa qabayga ujeedaa Soomaali ayaa Soomaalidu maaragtay arrintan u qaaday tawaad saas buulkeeda Kuberto waa hore ay ku tabayso Kuberto ama buste ayaa la yidhahdaa habeenkii dhaxal laga muuqdo lama yaqaan kol weerar aad iyo aad dalxiisayaasha waxaan leenahay soo dhawaada imaanu dadka hadday yimaadaan maxaan siin leena oo maqaaraad ku soo rareen dadkaas aadaan usoo dhaweyneynaa qare hadday noqoto hadday sisin noqoto haddii ay isbaandhays noqoto haddii ay cambe noqoto caana geel hilib ari fresh ah hadday noqoto yaanyadoo kale waatana qofkii aanan ka saynin qaybtan waa u bixinaysaa qaybtii miraha waatana miraha hadday dhalaysaa mirihiyaa ku yaala mirtiyaa ku taala saa ilmahaas oo qurbaha ku dhashay ama dadkaas aanan ka saynin oo weligood oo aa la barahayaa marka waata iyadoo waxaan ku darayaa qof kasta dhulkiisa oo dhan iyo dalkiisa qof kastana wuxuu iska soo hormariya ama uu dhulkiisa gashado asagay anfacaya asagay ilmihiisa iyo awlaadiisa dad kastana ayagaa dalkooda dhista hadda dal hadal lahayn waxba kuu taraa iimaan lacag ku tahriibta adigu waad haystaa ama waad heli kartaa maxaad u tahriibi weysay maya anigu ma tahriibayo ilaahayna iguma keeno wax aan u tahriibo in waddankaaga loo soo tahriiba aad u jeceshahay waddankayga loo soo tahriibaan jeclahay kaasina wuxuu ahaa manajerka beerta iimaan ayuu ahaa sidaas iyo daawasho wacan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu